wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكرني وحنا نجوجي سوري أرتوا مدة وكيرة مقنع وحير هوا مشغول أسكجري وذكرها لهانيسان ما أنتوا حنقادين وحليها على frequency adverbs B frequency adverb سوق قادني لكن frequency adverb كلاجرو أنا قول رأينا verb بيجا example وحندي كرنا Jeff is always dirty. Jeff وويل كان يريسكا is always dirty always مرة والبو وسخيسين يعني so frequency adverb with B غاب كاللوجو درا عن فيرنا مرة so either waxaan qaadan karnaa the subject plus B plus frequency adverb aan ku bilowno marka subject-ga waa Jeff always subject wuxuu ku bilowdaa either noun or pronoun magac ama magacayaal ama subject ay karnaa verb B-ga iyadoo raacay kadib frequency adverb then Jeff is always dirty tan markaan bedeli karnaa always dirty usually dirty often dirty sometimes dirty seldom dirty rarely dirty never dirty okay always marka sharciga jira wuxuu yahay verbka inuu lagu daro frequency adverbka subject marka soo qaadato verbka ayuu raacayaa frequency adverbka waan boobsiinayaa cashirka waa waqti yar ay ahaayeen then Sergio always rides a bike so kan marka waxa waaye waxaan soo qaadanaynaa subject verbkan ka boodinaa frequency adverb ma gelinaynaa frequency adverb kadib the simple present verbki oo qaab kale u soo qaadanaynaa oo the main verb ki ahaa so waxaan dhahaynaa Sergio always rides a bike. Sergio always mar walba rides a bike. Mar walba wuxuu kaxeeyaa biskileti. Usually aan adeegsan karnaa. Often adeegsan karnaa. Sometimes, seldom, rarely, never. Haddii aad u baahan tahay erayada micnahooda cashirkii aan soo qaadin hore ay ku xusan yihiin ayagoo xitaa percentage-ga ama qiyaasta laga isticmaalayo ay ku xusan tahay. So marka frequency adverb keligii marka uu kugu xiga verb subject-ga all simple present verb raacay except verb big intaan ka ahayn waad fahmi karnaa hadda marka tusaale yaraan sameynaynaa ama practice yariisa waan fahmaynaa marka he is tired waa uu daalan yahay marka waxaan rabnaa maalin walba uu daalan yahay dhahna so waxaan leenahay he is verbkii soo hormaraya kadib waxaan gelinaynaa adverbkii verb B kadib frequency adverb so waxaan leenahay he is usually tired he asaga is usually mar walba tired uu daalan yahay Jeff is sad wiilkan haddaad fiiriso Jeff la yidhaahaa weligii maba xanaaqsanaba Jeff is sad never Jeff is sad Jeff is never sad. So Jeff is never sad. So here waxaan soo qaadanay the subject of Jeff verb B or is never a frequency adverb Then Lucy reads at the library. Lucy waxay ku soo akhrisataa library-ga. So mar walba waay waa often. So Lucy often reads at the library. Lucy often reads at the library. It rains in the desert. Marka saxaraha waxaa loo yaqaanaa roob markuu da'ay very rarely mar dhif oo kala duwan kala fog so it rarely rains in the desert so it kadib maxaan ku xijinay subject maxaan ku xijinay frequency adverb rains then main verb ka raacnay rains in the desert then aan fiirina marka spelling and pronunciation of final es erayada spellingkooda ama finalka ka qaata es-ka qaabka loogu dhawaaqo iyo qaabka loo qoro Gerardo teach smart so haddii Gerardo waa ninkan teach smart wuxuu baraa xisaabaadka teach maxaan leeyahay teaches okay spellingkii waa kan and then pronunciationkii waa kan spelling waxaa la yidhaha qaabka erayga loo qoro pronunciationkan waxaa la yidhaha qaabka loogu dhawaaqo for example erayga hadduu ku dhammaanayo sh for example push haddii spellingkiis aan pushes ku daray es aan ku daray P-U-S-H-E-S that's called the spelling haddii qofku yidhaha spell your name or spell the word eray xaraf baad ugu sheegaysaa letter how do we pronounce the word push seen u pronounce garayn karnaa seen ugu dhawaaqi karnaa marka waxaan leenahay pushes ez baa isticmaalaysa hadduu ch ku dhammaanayo teaches
keys double s hadduu ku dhamaanayo ereyga keys kisses aa loo spell garina laakiin waxaa loo akrinayaa kisses z kisses x hadduu ku dhamaanayo fix fixes laakiin muxuu akrinaynaa fixes ez always so ereyada endingskooda uu yahay sh ch ss or x ending uu yahay ama dhammaadkooda waxaa lagu darayaa spellingkooda ama es aad ku daraysaa in pluralization I mean in spellingka kadib waxaad ku akhrinaysaa ez pushes example Seung never dash his TV program Seung will can never dash his TV program wiligii maba ma waayaba so ereyga double s uu ku dhamaanaya maxaan leenahay misses his TV program waa loo akhriyaa qoraalkaasana loo qoraa spellingka laakiin ez aa loo akhrinayaa misses Gerardo dash math teach ch ay ku dhamaanaysaa so es ku dar qaabkaad u akhrinayso waxay noqonaysaa teaches math Victor always dash his car Victor always wash sh es ku dar washes his car Victor always wuxuu dhaqdaa baabuurkiisa Ade usually dash sugar with his coffee mar walba Ade wuxuu ku qastaa sokor kafeegiisa mixes tani kulantada xiiso leh markaan u gudageli doona cashirkeena dambe final s ama es oo ereyada ku dhamaanaya ya-da ama y-da waa erey aad u xiiso badan hadduu alla ilaahay raho waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo